aad baa u mahadsan tahay wiilwaal allah ku barakeeyo booqashadaada waxaan salaamayaa dhammaan inta ina daawanaysa iyo intana maqlaysaba waxaan rabaa inaan mashruucan bilowgiisii inaan wax yar ka ishaaro mashruucan wuxuu daba socday arrin khayri ah oo guddigan hadda mashruuca gacanta ku haya ay u dhaqaaqeen oo fuliyeen waxay ahayd buundooyin go'ay oo ilaa soonaha nugaal ka go'ay ilaa 3 meelood buundo la yiraahdo Madigar oo ayadu aad u go'day iyo 3 meelood oo xaaj maartay 2 meelood oo kale oo go'day baa guddigan waxay u istaageen xilligii ay ku ekayd gabagabada ay ahayd xilleedkii cabdu ninka la yiraahdo may ninka la yiraahdo Faroole xilligaas baa guddigan u kaceen waxay ku guuleysteen inay sameeyaan buundooyinkii bishii December baa qorshahaas ku ekaa 2014 markii uu dhamaaday mashruucaas xisaab celintiisii baa guddigu laftiisu waxay ula tageen in mashruucan loo dhagax dhigo dawladda ayaka u geeyay mashruuc runtii istaraatiijig ah marka laga fiiriyo dhinacyo badan marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha waxa uu wax badan ka bedeli doonaa dhaqaalaha reer Puntland oo wuxuu sahli doonaa in magaalooyin kale iyo gobollo kale ay dadka reer Puntland ay ku soo xirmaan oo dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaalaha Puntland uu siyaado waxa uu qayb weyn ka qaadan doonaa gobolka Sanaag oo runtii ah gobol khayraad badan ku jira inay ganacsatada iyo shirkadaha daneynaya inay ku dhiiradaan gobolka sidii loo maalgelin lahaa oo gobolku helo wax la yiraahdo foreign investment oo runtii la dhihi karo waa arrin ay laf dhabar u tahay wadadu waxa hadda xusid mudan markii wadadii la helay jaamacadda Soomaaliya timi waxa laga yaabaa biridda ka dilaas qor in la yiraahdo hala dhiso waxa laga yaabaa shirkado macdanta iyo wax la khayraadka dabiiciga ee gobolku qaniga ku yahay in la helo oo maal gashta taasuna nolosha iyo istaanarka dhaqaale ee gobolka iyo guud ahaan reer Puntland inuu siyaado ilaahay fadligiis dhaqaalihii budgetkii dawladdu ay lahayd annagoon taaban baan annagu iskaya ganacsatada iyo inta la shirnay baan waxaan u samaysanay fan waxaan shirinay ganacsatadii runta ganacsiga iyo baa aad noogala shaqeeyay Allah barakeeyo waxaanu muxuu ahaa gudoomiyaha guddiga ganacsigu wuxuu ka mid yahay guddiga ganacsatadii waxaanu rabnaa inaan wadada samaysano si isxilqaan inaan ku samaysano dhaqaalaheedana inaanu ku darno wax hadda la bixiyo niqaash badan kadib ilaahay waa nagu guuleeyay waxaanu exportiga importiga waxaanu saaranay 3% wixii markaa la qaadi jiray ka baxsan neefka xoolaha ah geela iyo ariga waxaanu saaranay $1 wadada ceel daahir baa ku qoran muxuu ahaa gaadiidka neefka ariga ana waxa saaran 25 cent saasaan u qoodaysanay baabuurta yaryar waxaanu saarnay oo xaragada $10 baabuurta waaweyn qaarna 20 baan saarnay qaarna 40 baan saarnay si u kala waaweyn yihiin barnaamijkaas saasoon baan u dhiganay ardada ayaa noogu jirtay mobilada ayaa noogu jirtay shakhsi ahaan in wax la qaado wax badan dawladda lafteeda ayaa noogu jireen laakiin barnaamijka waxa boqolkiiba boqol hirgalay qodobada hore oo dekada ku saabsan dawladdu qaban jirtay ardada sidii la rabay waxna waa la bixiyay laakiin percentage ka arki doontaane sidii la rabay uma bixin saasoo mashruucu ku bilowday lacag aruurintiisa ugu horeysay waxaa la bilaabay bishii sanadka 2015 bishii May baa dawladda ugu horeysay labadeedii baa bishii lacagta ugu horeysay oo khasnada noogu dhacda dawladda baa la qabtay laakiin ka hor boqor burhaan Allah barakeeyo ayaa wuxuu ku bilaabay wadada lacagta ugu horeysay oo akoonka wadada ku soo dhacda waxay $10,000 oo boqor burhaan uu bixiyay waa ku amaanayna Allah barakeeyo meelo badanna waliba uu ka sheegay in wadada loo kaco lacagahaas wadada waxay soo mareen dawladda noo soo maraan bangiga dawladda ay ku dhacaan kadibna si wanaagsan bay wax noogu soo dhacdaa akoomada
mashruuc uu leeyahay. ka jawaabno iigad waxna la bilaabeen wadada proposalkoodu iyo inay wax ka qabanayaan markii aan wadada bilownay ayay iyaguna noo yimaadeen iyagoo hay-ad la yidhaaho EY ay matalayso oo la leeyahay lacag Puntland ay leedahay oo loogu talagalay mashaariic ayaa waxaa ka mid ah in wada marta Ceeldaahir ilaa iyo baran lacag $2 milyan ayaa loo hayaa marna $1,800,000 loo sheegay tiiman badan bay noo soo direen marar badan bay nagu soo noqdeen kharaj badan bayna geliyeen hawl badan bay injineerada u direen marbaba meel baa la yidhaha sarfir ka soo sameeya qalabka iyaga ay kaantarooleen kabacdi waxna yidhaha wax walba waad ku wanaagsan tihiino xataa qalabka iyaga markii ay jeegaraynayeen waxay yidhaahdeen waxaad haysaan more than equipment wax ka badan qalabkii loo baahnaa ayaa meeshiina yaalla shaqo fiican baa wadaan laakiin 5 sannadood oo aan hawsha wadnay iyo waliba lacagtaas oo la leeyahay waxaa la qoondeeyay 2012 oo annaga intaana shaqada bilaabin 4 sano ka hor ayaa la qoondeeyay la leeyahay waxay noqotay waxa weeye roob la sugayay oo dii waayay haddana meel ay ku dambeysay ma aanu naqaan barnaamijkii mar hadduusan dhaqaalo badan barnaamij loo haya ahayn maxaad wax ku bilaabi kardhaan siyaasa wax u bilaabi kardhaan waxaa noo muuqatay in barnaamijka wax lagu bilaabi karo uu yahay qalab annagu aanu leenahay mashruuc uu leeyahay oo wixii kuu soo baxana ay kuu noqdaan shaqaalaha iyo shidaalka iyo ay danahaaga kuu noqdaan waxaan ahayn wax kuma bilaabi karna sababtoo lacag kuu taalla oo aad ku bixisid muxuu ahaa aad company kula geshid muxuu ahaa contract ma helaysid waa wax bil walba wax kaaga soo baxaya marka waxaan ku talagalnay qalab aan leenahay inaanu helno muxuu ahaa waxa noo soo baxana ay noo noqdaan expense billaha ah shaqaalahaasi runtii waxay ka kooban yihiin xirfadley Soomaali ah iyo dad ajnabi ah oo runtii qaybo kala duwan oo mashruuca ka shaqeeya qaybaha warshadaha iyo qaybaha engineering-ka u badan waa iyo qaybaha macidaadka qaar ka mid ah iyo dayactirka waxa ka shaqeeya shaqaale ajnabi ah laakiin shaqada inteeda kale waxa gacanta ku haya Soomaali shaqaalahaas mashruucu uu leeyahay runtii waxaan dhihi karnaa iyaga guushaas iyo natiijada horseeday waxaan haddaan yara dul istaago dadkani waa dad sida kambaniyada internationalka ah xuquuqdooda loo ilaaliyo qofka shaqaalaha wuxuu leeyahay mushahar wuxuu leeyahay wax la accommodation cunto iyo wax la yiraahdaa chief waxa uu leeyahay bil fasaxa sanadkii waxa uu leeyahay wax la yiraahdo xuquuq caafimaad haddii uu xanuusto waxa uu helaa tababaro iyo horumarin xirfadeed waxaana uu mas'uul leeyahay wax la yiraahdo maamul iyo xeerar iyo shuruuc shaqaalaha lagu maamulaa jirta oo hirgelisay natiijada shaqada iyo geedi socodka dadka 100 qof ka badan ee wada joogay inay noqdaan dad hal ujeedo leh oo ah mashruuca sidii looga guulgaari lahaa mashruuca inta uu jiray maxaa soo galay maxaase ka baxay xagees ku baxeen mashruuca dakhliga guud oo soo galay oo maanta qof walba oo damca inuu mashruuca xisaabaadkiisa ogaado oo si transparent u helayo waxaa weeye $8,835,398.97 intaas mashruuca soo gashay lacagtaasu waxay ku baxday waa kharash iyo qalabka inoo yaala oo qalabka inoo yaala oo asadka ah qalabka inoo yaala maanta qiimaha anagu aanu ka bixinay oo uu noogu fadhiyo lacag ahaan naga gashay waa $3,300,000 hadda agaasimaha ayaa sheegay qalabka maanta qiimeyn markii la yiraahdo waxa uu ku qiimeysan yahay laakiin waxa anagu uu noogu fadhiyo oo maalintii la soo gaday maanta uu waliba ka sii fiican yahay kharashka guud oo baxay ha u baxo kharash anaga naga baxay ama deyn nala ku leeyahay ha ahaato waa $5,989,822 waxa maanta mashruuca lagu leeyahay lacag dhan $461,264 oo u badan arintii qayladhaanteeda aad maqlayseen oo daamurka ah 5 kun oo daamurka ahayd oo ugu horeysay oo aan rabno hadda inaanu wadada lagu bilaabo walow 5 kun oo kalena ay noo soo socoto oo iyaduna insha Allah taala daba socota oo deyna iyaduna laakiin maadaama aan deyn wax aan ka bixin kuma aan dirin halkan 5 kun oo hore halka ku jirta dakhliga mashruuca iyo kharashaadkiisu iyo agabka noo yaala qiimihiisuba inahaas weeye waxaan wada la sameeyay waa ka weyn tahay waa mashruuc dhaqaale waa mashruuc siyaasadeed waa mashruuc degaan xataa degaankii uu nooleeyay
oo waagi horeeto environmentiga marka la fiiriyo baabuurtu meelo kala badan bay mari jirtay, pollution baa dhici jiray, xoolihii iyo daaqii baa dhibaato badan la kulmi jiray. maanta markii magaalada baran hal wado ay gasho baabuurta dhan wadada ay martahay dhinacyadii kulligood caws bay noqdeen iyo wax la yiraahdaa iyo deegaan beereed. taas waxay sahashay xoolo dhaqatadii iyo guud ahaan deegaankii laftigooda inaysan dhibaato ku dhicin oo waxay mashruucaani xataa uu si weyn wax uga taray wax la yiraahdo environmentiga iyo ilaalinta deegaanka oo runtii xiriirto uu ka dhaxayo la yiraahdo positive relationship waxay ka dhaxayaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo deegaanka ilaalinta deegaanka. waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo wadadaani waa ay ka ballaaran tahay wax la yiraahdaa wado baran iyo isku xireysta iyo Ceerigaabo iyo Ceeldaahir waa nolol iyo horumar deegaan iyo dad oo la rabo in la soo nooleeyo lana gaarsiiyo guud ahaan gobolada kaleeto ee kaabayaashooda dhaqaale horumarsan yihiin. marka waxa ay tartayna dee nin walba oo baran tegi jiray ama yaqiinay wuu arkay waxa ay bedeshay oo maanta dee dadkii la lahaa cusbitaalka iyagoo loo soo wadaabay dhintaan ama maxaan ku raahdaa waxaba bilaabatay laba arrimoodba way bilowdeenoo maalintii waddadu ay baran tagtay ayaa waxay noqotay barani meel laga ololeeyo oo dowladda Puntland iyo madaxweynayaashu nin kastaaba uu yiraahdo waa soo maray. waxa bilowday waddada Ceeldaahir Ceerigaabo ayaa bilowday. ruuxii marka kastaba waxay uga baahan tahay oo Soomaali ah oo mari maxaan ku raahdaa dee maqlaya warka kan inuu dhaqaale wixii uu kari karo uusan ka hagranin ayay u baahan tahay. ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto waxaan leenahay Soomaaliya waa dad isku mid ah oo walaalo ah. mashruucani waa mashruucii ugu horeeyay ee burburka waddanka ka hirgala isku tashina uu ku yimi idinkana waxaan idinka codsanaynaa gobol hebel buu ku yaalaa iyo magaalo heblaayo mara inaydaan oran aad noo weel qaadaan oo tabarucaad u niyeysaan oo sakawaad u niyeysaan oo infaaq u niyeysaan oo ilaahay ugu dhawaataan oo sadaqa jaariya imaadatu cani dariiqi sadaqa nabiyullaahi maxamed bay ka sugnaatay. qofka dariiqa ka leexiya dhagaxa ama qodaxda ajar buu helayaa. qofka qof muslima u diyaariyay laami u marayna maxaad u malaynaysaa? aan janno ku doonno adduunkan waxyar baa la joogayaa aakhiraa la tegayaa ilaahay aan ugu dhowaano tahaadu taxaabu. nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam war waxaysa siiya aada isjeclaateene. waxaan kusoo gebagabaynayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka gobolka Sanaag war waajibka aad leedihiin qaata wadada isku tashiga ah oo hal shilin oo ajnabi ka yimaada aanu ku jirin hanti Soomaaliyeed ay tahay dhinacina ka raaca. waxaan idin leeyahay daawanayo waa dalkaagii. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.